مدحوينونا وآبيه دلك وإلاليه الشرعي وإلاليه دستور كخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. داوديال ورئيسنا وحين ولا لنا سياسي عبد الرحمن سليمان أو كمد معركة سياسيين تا حزبية دلك كجرنا وحكه جامية وحرمنا إن وحكه يدينه أرماها سياسة دلك أمنية وحيابها هذا السعودي وحلو بها يعني عبد الرحمن مركو ركوسو دو مركي حقو حنربا إن نكبل لونه أمنية إن نكبل لونه markaad fiiriso waxyaabaha socda iyo amniga maxaad ku qiyaasi kartaa maxaad dhihi kartaa shula away soo maasan tahay horta wadanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal dawladda cusub oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda ra'iisul wasaare xamse waan ognahay markay wadanka imaadeen ay shaqada xafiiska la wareegeen waxay ku dhawaaqeen dagaal ka dhan ah in kooxaha nabadiidka dalka laga nadiifiyo runtii hawshaasi meel fiican bay maraysaa iyadoo goboladii iyo degmooyinkii iyo dalkoo dhanba ay dib u xoreen ay ka socoto nimankaasna dalka looga xoreynayo marka runtii dawladdu way ku mahadsan tahay wana bogaadin iyo mudnaan bay leedahay shaqada wanaagsan ay wadaan maxaa yeelay dalku haddii aysan dawladnimadu aysan amnigeeda iyo system dawladnimaba aysan dalkoo dhan aysan dawladnimadu aysan ka wada hirgelin oo dhulka qaarna ay kooxo gaara haystaan qaarna ay dawladda gacanta ku hayso intii dawladdu gacanta ku haysay haddana ay xorriyad lagu noolaan kari waayo waa arrin dhibkeeda iyo caqabadeeda leh marka runtii dawladdu tallaabada ay qaaday ah in dalkoo dhan amnigiisa gacanta ku wada dhigto kooxaha nabadiidka ay ka nadiifiso dalkuna uu amnigiisuna hal meel uu maaragtay ka tala qaato dalku dawladnimaduna hal meel ay ka wada duusho taas waa runtii maaragtay aad maxay ahayd bogaadinteeda u mudan dawladda lagu amaano amniga kulli waxaan dareemaynaa baryahan dambe amnigu uu soo wanaagsanaanaya waddankan aan ognahay amnigiisa meesha laga keenay dawladihii isbadbedelayay dawladba meel bay amniga soo gaarsiisay maanta alxamdulilah dalkii maanta ciidan iyo saraakiil carbisan ayaa dalkii maanta xukunkoodii haya sidaas laajiligeed runtii waa arrin maaragtay aad maxay ahayd farxadeeda leh in maanta saraakiil dhalinyaro ah iyo taliyaal khibrad u leh amniga maaragtay waddanka oo aadan muddo shaqaynayay inay amnigii iyaga laftigooda ay horboodayaan hormuudna u yihiin meeshaas marka la joogo dad badan oo waxaan arkayay aaminsan in hawlgalka sidaan ka sii fiicnaan lahaa haddii la bedeli lahaa taliyaasha hadda shaqeynayo waa maasan tahay horta innaga horta waddankeennan cilladda ugu weyn haysta waxay tahay had iyo jeer waxaan jecel lahay qof xil haya in beddelkiisa lagu degdego dadka madaxda ah ee amniga ka shaqeeya dunidoo dhan caalamka waxay ka sameeyeen baa jirta taliyayaasha ciidamadu waa dadka u ah waddanka hormuudka beddelkoodana laguma degdego maxaa yeelay tusaale meel baad madax lagaaga dhigaya marka madax lagaaga dhigo waqti baad meeshii gelisay xoogaal badanna meesha waad u tahay haddii haddana ciidan la maamulayo la xukumayo haddana amni laga shaqeynayo ay tahay haddii qof cusub la keeno oo amnigii qof cusub taliya laga dhigo bahashu waxay laga soo bilaabaya aasaas hoos baadana ka soo bilaabay laakiin qofka waqtiga la geliyey ee joogay meesha ee xukunka muddo joogay ciidanka ee amniga ka shaqeynayay ciidanka maamulayay waxa u sahlanaanaysa in uu shaqadii uu hayay uu maaragtay meel sare u geeyo laakiin maaha in beddelkiisa lagu degdego maxaa yeelay maanta ciidanku waxay nooga baahan yihiin madaxdiisu waa in la tayeeyo way awood ahaan la tayeeyo khibrad ahaan la tayeeyo laakiin in beddel lagu degdego aragteen anigu maaragtay waa ka aragti duwanahay maxaa yeelay hadda ciidamada taliyaasha hadda sida taliyaha booliiska oo kale jeneraal xajaar iyo taliyaha militariga odawaa iyo taliyaha ciidanka lugta jeneraal biixi waa rag runtii iyo saraakiisha ka soo hoos shaqaysaba ah dalkan meeshay ka soo qaadeen oo saraakiisha taliyaashii hore ay soo gaarsiiyeen ba iyaguna kor uga sii qaadeen horena u sii mariyeen marka waxay u sii baahan yihiin maanta bogaadin iyo in la sii garab istaago shaqaday hayaana lagu ammaano wixii ka qabiya ama ma aragtay waay aragnimona lagu sii maaragtay maxay ahayd taageero laguna sii xoojiyo sidaana loo daayo oo sida caalamka dunidu ciidamadu taliyaashu dhisan yihiin ama laama amnigu dhisan yihiin in dalkeenana loo daayo si waxayna ay u yeeshaan
natiijo maaragtay guulsheeda iyo maaragtay horumarkeeda iyo isbeddelkeedaba la mahadiyo marka runta aniga arrintaas in beddel lagu degdego runta ahaantii ma qabo ragga ku jira hanka inay taliyayaal noqdaan tusaale ahaan oo hadda dowladda hadda timi la xisbiga ah oo rajo ka qaba inay maanta ciidamada xukumaan waxa uga fiican la taliyayaal iyo xilal kale inay amniga ka qabtaan ay taliyayaashaas ku garab siiyaan laakiin in taliyayaashu waa astaanta qaranka waa astaanta ciidanka in kuwa hadda jooga la xoojiyo la sii tayayo la sii taageero baan qaba maxaa yeelay hadda intay dhismihii ay ciidamadu socdeen dowladda hore hadda meesha ka baxday hamiishe waxay siiyeen hamiyadda kooda in ciidanka la dhisay siiyeen marka maadaama ciidankii ay xoogga saareen in la dhiso oo aan dareensannahay hadda 5,000 oo ciidan ah oo bad iyo cir iyo dhul loo tababaray in elitariya tababarka hadda uga soo dhammaaday oo dowladda madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda ra'iisul xamse ay dhawaan Soomaaliya waddankeena dib ugu soo celin doonto dee taliyayaashii heerka ciidanka gaarsiiyay bay walaxayeen ciidamada haram cadkan iyo gorgor iyo danab iyo nimankan hadda sii maaragtay xoojistay waddankan amnigiisa kaafiyay nimanka dhisay waa nimankan maanta taliyayaasha maaragtay hawshii maaragtay loo dhiibay taliyayaashii hore kala wareegay barteedii ka sii aanba qaaday marka waxaan leeyahay madaxweynahan aan tala ku siinayaa iyo xukuumadda ra'iisul xamse taliyayaasha amniga il gaar ah lagu hayo amnigu uma baahna taliye la bedelo ee wuxuu u baahan yahay in la tayeeyo dhaqaale ahaan khibrad ahaan intaba in awoodda amniga la isugu geeyo oo maskax maaragtay badan lagu xoojiyo amniga waay in aan taliyayaasha beddelkoodii lagu degdegin oo aan maaragtay lagu laalaabanin tusaalooyinka aad u soo qaadanaysid waxaa ka mid ah caalamka sidaas ma aha waa sax oo caalamka taliyayaasha garsoorka la mid ah waxaa laga fiiriyaa dadkan maadaama ay malaf gacanta ku hayaan oo ay khibrad badan shaqadan u leeyihiin oo ay sir badan hayaan inaan maaragtay beddelkoodii iyo maaragtay lagu laalaabanin oo aan lagu fududaanin laakiin mararka qaarkood waddamada iyo waxaa kala duwan duruufaha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin ayaa kala duwan soomaaliyana duruufaha ka jirto waddamadaas kalena way ka jirtaa hadda marka dadka aaminsan in taliyayaashan in la beddelo ay ku fiican tahay amniga si uu u sii fiicnaado oo howlgalladu ay u guulaystaan waxay ka fiirinayaan in sistamyada ay kala beddelan yihiin oo tusaale ahaan hadda dowladdan xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay tii maaragtay maxamed cabdullaahi farmaajo ay kala duwan yihiin sidaas darteed dadkan halkaas inay ka shidaal qaadanayaan ay aaminsan yihiin oo aysan la haysanba tan madaxweynaha waxaad og tahay howlgalladii dhacay inkastoo xogo oo ciidamadu ayaga ay og yihiin oo maaragtay ay yihiin oo warbaahintan aan loo sheegin in meelo inta la galay oo la qabsaday oo juhdi lagu bixiyey oo rag ku dhinteen oo ku dhaawacmeen oo qarash ku baxay in si fudud looga baxay oo ay leeyihiin waa lala soo hadlay xitaa haddii aan la qarinayn telefoona lagula soo turkiya lagala soo hadlay la leeyahay iyadoo lagu eedeynayo farmaajo lagu eedeynayo taas maxaad uga jawaabaysaa haddaynu Soomaali nahay waxaanu raadinaynaa u socono waa dowladnimo laakiin uma soconno hebel xisbi kale ka tirsanaa hebel kale xisbigayga ama meel heblaay keenaya horta dowladnimadu kuma shaqayso innagu waxaanu rabnaa inaan ka guurno fikirka ah 4.5 waxaan kaloo rabnaa inaan ka guurno dowladnimadan maalin walba qof jeebka ku qaadanayo waxaan rabnaa inaan dowlad rasmiya oo dhammaystiran inaan noqono waxaana ku noqon karnaa waxaa weeye inaan xuquuqda aasaasiga ee madaxda ama laama amni ha noqdeen ama shaqaale dowladeed ha noqdeen inaan horta ilaalinaan u baahannahay tusaale madaxweynaha hadda jooga madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa soo doortay baarlamaan dowladdii ka horreysay isteedyadii ay madaxweynayaasha ay soo saartay ay soo xusheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 214 xildhibaan codkoodii uu ka helay madaxdii xisbiyada isteedyada ay soo saartay xildhibaanadaas oo madaxweynihii hore hadda maaragtay talada xukunka ka tegay oo maaragtay sabab u ahaa isteedyadaas imaanshahoodii umaysan codeyn waxay u codeeyeen madaxweynaha hadda xukunka jooga madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu baarlamaanka ay la shaqeynayaan waa baarlamaankii rag ka siyaasad duwan ay la soo baxeen maantana dowladdoodii way ansixiyeen xukuumaddii golihii wasiirada ansixiyeen haddana dowladdii bay la shaqeynayaan marka laamaha amniguna sidaas waa ka sii duwan yahay maxaa yeelay amnigu waa xogta iyo sirta iyo calooshii dalka weeye maxaa yeelay taliyuhu wuxuu ku shaqeeyaa waa abaamir taliyaha guud ee dalka maaragtay ciidanka qalabka sidana waa madaxweynaha weeye marka taliyayaashu awaamirta ay hore shaqadii ay u hayeen wuxuu ahaa inay waddanka amnigiisana ay ilaaliyaan ciidankana ay tayeeyaan waddankana ay mas-uuliyaddiisa ilaaliyaan madaxweynihii labadii madaxweyne unbaa isbedelay madaxweyne cusub baa yimi awaamirtii madaxweyne hore ka qaadanaya madaxweynaha cusub unbay awaamirta ka qaadanayaan marka taas laguma eedeyn karo
awaamiir baa meel kale ka soo baxday ama dawladdii horaa mid kale dawladdii hore dalka dawladnimay ka shaqeynaysay dalka burburkeeda ka bay shaqeynayeen maantana maaragtay dhaxalkii ay uga tagtay Soomaaliya day waa tan maanta maaragtay miraheeda la hayo oo dawladda dalka burburkeeda ka shaqeynaysa dawladda dalkan iyo dawladnimada iyo horumarka Soomaaliya ka shaqeynaysa ba ahayeen dalkana 5 sano ku dhawaad iyo bar mas'uuliyadeeda haysay laakiin siyaasigan arrimaha aragtiyooyinkan siyaasiga ee khilaafka ay ma lagu salayn karo in la yiraahdo qoladii horaa waxay ka shaqeynaysaa dhibaato marka waxaan leeyahay dacaayadka dadka siyaasiyiinta ee dacaayadka fulinaya maaragtay faafinaya iyo dadka kale ee maaragtay baraha bulshada arrimaha ka bumbuuninaya waxaan leeyahay ciidanka madaxdiisu waa astaan qaran waa kuma xidhna siyaasadda dalka marka ka jirta ciidanku shariic iyo nidaam iyo system ay ku shaqeeyaan buu leeyahay tusaale wasiirka gaashaandhigga maanta wasiirka gaashaandhigga ah dawladda hore waa ninka wasiirka gaashaandhigga ahaa weeye haddeerna mar labaad wasiirka gaashaandhigga laga dhigay macnaheedu waxaa weeye looma fiirin inuu maaragtay aragti dawladda hore ka soo horjeeday ama dawladdan cusub la aragti ahaa waxa loo fiiriyay waxa inuu shaqadan ku haboonaa oo maaragtay u qalmo taliyaashan hadda ilaa hadda xilalkoodana loogu daayay in wali ciidanku u baahan yahay marka waxaan ka hadlaynaa waxay tahay ciidanku astaan qaran shaqada ciidannimada iyo aragtida siyaasiga ah ee kala duwan waa in la kala saaraa ciidanku waa astaanteeni waa inaan ilaashano way dawlad kasta timaada iyo qof kasta madaxa timaadana isagay sharaf u tahay in ciidamadii taliyaashii ka horreeyay inay shaqadoodii uu ku garab siiyo uu kuna garab istaago isagay sharaf u tahay sumcad ahaanna u tahay madaxweynuhuna waa aabihii dalka waa ilaaliyihii sharciga waa ilaaliyihii dastuurka qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waan ogeyn markii hadda siyaasadii isdiidanayeen annagu aragtidii xisbiyadii aaminsanaa aragtida qof iyo codka toosan banayn madaxweyne xasanna iyo siyaasiyiin ku jireen dadkii aaminsanaa bay ahaayeen inaan dalkan sana waqtigan aan la geli karin laakiin doorashadan tii hadda dhacday la aado marka de maanta isaga madaxweyne xasan sheekh isaga madaxweyne annagana madaxweyne noo ah dawladdii hadda hore meesha ka baxdayna madaxweyne u ah shacabkana maanta isaga madaxweyne aabbo u ah isaga marka siyaasadiisa maanta waa inay noqotaa siyaasad maaragtay cid walba maaragtay ay maxay ay tahay gacantiisa maaragtay ay kaga heli karto cadaalad iyo maaragtay laakiin meesha laga saaro shaqaalaha dawladdu waa shaqaalihii si xisbigii hore ka tirsanaa wana shaqaale kala keensada hadhow biritan ana imaanaya ama nin kala imaanaya annaba sidii baan u xaqaya waa maya waxa u soconnaa waa dawladnimo inaan 4.5 ka gurno inaan dawladdan maaragtay dawladnimadan jeebka maaragtay marba group gelinayaan inaan ka saarno qof kastoo dalkan ilaahay maaragtay uu nasiib u siiyo inuu dalka xukumo waa inuu dalka taariikh uga tagaa meesha uu ugu yimina uu ka sii amba qaado meel qurux badan geey marka laamaha amnigu marna lama siyaasadeyn karno marna siyaasad ma noqon karo laakiin mid waa la samayn karaa laamaha amniga haddii la dhaliilo xaq bay leeyihiin inay istifaacaan afayeenay leeyihiin iyaga laftigoodu way hadli karaan oo waxyaabaha qaar way maaragtay dhaliili karaan laakiin maanta waxaan aaminsanahay mid Soomaaliya maanta taliye ka ah oo amni ka shaqeynaya dulqaad iyo baraarujin iyo wuxuu mudan yahay maaragtay in lagu garab istaago shaqada way dhinaca amniga haddii aan ka tagno siyaasadda sida ay hadda wax u socdaan iyo maaragtay waxa loo baahan yahay maxay kula tahay qodobka yar amniga rabaa inaan sii raacsado oo aan ka baxaya hadda tusaale gobolka Banaadir oo 17 degmo dadka ku nool ma diiwaan gashna qof muwaadin oo aqoonsi ID card leh oo la cadeyn karo inuu muwaadin yahay lama garanayo qofka caawa magaalada soo galaya qofka ka baxaya wax lagu kala saari karo sumad ahaan lama garanayo wasaaradda arrimaha gudaha oo ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha waxaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed ee gobolada dalka ku nool siiba caasimadda Muqdisho in laga bilaabo in dadka national ID card-ka loo sameeyo si laamaha amnigu qofka magaalada soo galaya qofka magaalada ka baxaya oo sumad u yeesho loo garto iyo qofka degmada degan hadda waa bari baan deganahay degmada waa bari inaan anoo Cabdiraxmaan aan degmada waa bari deganahay ama degmadii ma taqaana xamar shashi baan deganahay in la ii garta maaha waa in la ii gartaa inaan sharciga iyo ID card-ka national ID-gaygu inuu ku qoran yahay inaan meel heblaayeel aan deganahay degmadana ka diiwaan gashanahay tixraac la leeyahay laamaha amnigu markay ii yimaadaan ama ay qofka muwaadinka u yeedhaanna qofku waa inuu tixraac yeeshaa qofka magaalada soo galaya qofka baxayna sidaas leeg marka waxaan leenahay laamaha amnigu wasaaradda arrimaha gudaha iyada mas'uul ka ah bulshada dalka gudahiisana iyada shaqadeedu maaragtay saaran tahay wasaaradana waxaa wasiir ka ah nin siyaasi ahaa oo ragga aad systemka hore aad maaragtay uga aragti duwanaa oo aragtidiisa ku qeexi jiray in dawladnimadu isbedel u baahan tahay in wax la saxo u baahan tahay wasifiqi isaga waxaan ka rabnaa marka maanta isaga wasiirka arrimaha gudaha inuu shaqadiisu aysan siyaasad kale wax kale aysan ku mashquulin wasiirka arrimaha gudaha dalka mas'uuliyadda ka saaran inuu national ID-gina uu sida ugu dhaqsiyaha badan oo u dardargeliyo dadkana ma aragtay uu maxay tahay sumad lagu garto
dadka in loo sameeyo si berritana xitaa amniga way ka saacid dadka ka saacidi doontaa ilaamaha amniga xitaa hadhow markaan doorashooyin geli doono dadka xitaa maaragtay tirakoobka diiwaangelintaasi wax badan bay maaragtay suurtagelaysaa marka waxaan leenahay laamaha amniga si aan kusii raacsanaya taliyayaashuna inay taliyayaasha amniga mas-uulka ka ah inay shaqadooda ku kontaroolaan kula socdaan kula xisaabtamaan meeshii wax ka dhacaana ninka taliyaha ka ah ama madaxda ka ah ama mas-uulka ka ah waa in cid sababteeda qaata iyagana ay u sameeyaan oo haddii meel wax ka dhacaan oo dayac u dhaco waa in dayacii cid lagu maxkamadaya mas-uuliyaddeeda la saaraa ama shaqadeeda cid ku weydaa oo iyaguna taliyayaashu taas ay mas-uuliyad ka saaraan oo hadda sidii antidhow falkii madaxtooyada ka dhacay oo kale hotelkii Villaros oo kale waxay ahayd saraakiisha meesha kaaga dhow dhan in mas-uuliyadda la saaro oo cid maaragtay ay aabbo u noqoto walow dalku dagaal ku jiro markuu dalku dagaal ku jiro xaalado badan iska dhici karaan laakiin weyn isla xisaabtan dhab ah amniga dhan walba maaragtay laga fiiriya su-aasha kale waxaa waaye xasan sheekh maxamuud wuxuu soo noqday madaxweyne kadib shaqada madaxweyne kale uga dambeeyey hadda mar kale uu calaf u yeeshay intaas khibrad maamul iyo siyaasadeed ayaa usii kordhaysay hadda waxa madaxweynaha laga filan karo iyo waxa laga raba xilligan in uu ka shaqeeyo siyaasad ahaan maxay tahay waan maasan tahay horta madaxweyne xasan sheekh maxamuud horta waa nasiib badan yahay runtii ilaahay baa u calfay inuu mar labaa Soomaaliya madaxweyne ka noqdo dabcan madaxweynuhu fariinteedana kulli hadalkiina uu dhageysan doonaa san rajeynayo markuu xilku ka hayay ka hor inta hadda soo laaban ka hor waxyaabo badan baa ka khaldamay waxyaabo badan uu saxay marka waxyaabay ka khaldamay maanta ilaahay fursadii mar labaad uu dib u siiyay waana dareemayaa waxyaabay ka khaldamay inuu hadda rawaay aragnimo badan oo ka qaatay 5 sano oo banaanka joogay wax badan oo bedeli doono waxaan aaminsanahay waa madaxweyne maanta dalka taariikh uga tagi doona jaaniska yar oo haysto waa madaxweyne taariikh uga tagi doona saan hadda iga muuqato aan uga jeedo madaxweynaha runtii waxaan rajeynayaa waxyaabihii uu waagaas ka hoos baxay inuu hadda sixitaankeeda uu xoog ka saaro soo wax kale ku mashquulin shaqada maanta hortaalla ee laga filan karana waxay tahay horta madaxweynaha sidiisaba 3 shaqo baa u muhiimsan waa inuu dalkana dastuurkiina dhamaystira waa hay'adaha ku shaqada leh dastuurka garab ku siiya maadaama isagu ilaaliyaha sharciga yahay in dastuurka dalka la dhamaystiro dalku dastuur yeesho oo qabyadu dastuurka ka baxo midda labaad in maxkamadda dastuuriga ahay uu dhiso oo sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda dastuuriga oo ninka madaxweynaha ama ninka wasiirka ama ninka mas'uulka dawladda ee dambi kala ah ama khilaafka siyaasiga isdeediyada iyo dawladda dhex maray meel maxkamadda dastuuriga oo lagu kala baxo marjac damba ah horta in la dhamaystiro taas horta waa qodobka horta uu wariyala inuu dhamaystiro dastuurka iyo inuu maaragtay maxay tahay qabyada maaragtay dastuurkana uu dhamaystiro maxkamadda dastuurigana dhismadeeda uu ka shaqeeyo dalkan hanaan doorasho oo qof iyo cod ah ku garab istaago labada aqal ee baarlamaanka ah in shuruucdii hore la ansixiyay hadii wax laga bedelayana ay wax ka bedelaan oo dibugis badan lagu sameeyo oo dalkan doorashada qof iyo codka ah qaabka ugu habboon ee Soomaaliya doorasho qof iyo cod uga dhacayso inay uga qabto ay maaragtay uga hirgeliyaan taasna inuu dawladda uu maaragtay uu garab ku siiyo midda xigtana waxa weeye isteediyada dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe inuusan isteediyada uusan u tusin in fiila Soomaaliya cadow ku tahay isteediyada ama dadka dawlad goboleedyada ku noolay ay fiila Soomaaliya waxay rabto waxaan aysan ka soconayn ee bahasha intii maamulka la daadajiyo in dadka dawlad goboleedyada ku nool xorriyadda la siiyo cidda isteedka ay keensanayaan iyo cidda iyagu cidkooda ku dooranayaan oo meesha laga saaro aftuubyada ay fiila madaxtooyadu ay ka dhex geysan karto maamul goboleedyada si wax tayo leh ay meesha uga soo baxaan oo maaragtay la isla soo jaan qaadi karo marka madaxweynuhu haddii 3 qodob dalkan uu dastuurkana dhamaystiro maxkamadda dastuuriyana dhiso qof iyo codna dalka ka hirgeliyo isteediyada iyo dawladda dhexe siyaasadeedana uu toosiyo hadduu intaas madaxweynuhu ku guuleysto waxaa dhacaysa waxa weeye taariikhda dhici doonta dagaalka uu ku jiray xoreynta dalka iyadana uu ku faataxaysto maaragtay dalka uu maaragtay nimankaas odayaashana maaragtay maxay ay tahay meesha laga saaro oo ka nadiifiyo dalkuna maaragtay uu jiray sax ah horumarkiisa leh uu ku tooso madaxweyne xasan sheekh taariikhda markaa qoraysa way doorkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee 2012 ilaa 2017 waa lagu guul dareystay doorasho qof iyo cod ah in la qabto oo xisbiyadu ay maaragtay ayagoo axzaab matalaad ah ay ka qayb galaan tii madaxweyne farmaajo ee 2017 ilaa 2020 waa lagu guul dareystay tan hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mis leedahay fursadaas suurtagal way tahay oo waa la keeni karaa doorasho qof iyo cod iyo xisbiyadu inay ka qayb galaan fashilaadda ugu badan waxa sababteedu waxa ahayd waxa weeye horta ciladan haysta weeye ninka mas'uulka ay markuu xafiiska yimaado
iyo markuu bannaanka joogo waa kala siyaasad weyn mas-uulku markuu xafiiska yimaado oo xafiiskii fadhiisto wixii markuu bannaanka joogay uu arkay wax ka duwan haddana u soo baxaya marka waxaan leenahay taasaa caqabad ku ahayd oo cillad ku ahayd in la fuliyo waxa dastuurka ku qoran waad ogtahay markii dawladdii kumeelgaarka la dhisayay carta lagu dhisayay Soomaaliya 4.5 markii ku heshiinaysa la 4.5 dawladdan ku dhismo hadafku waxa 2 sano in dawladda kumeelgaarka ay ku shaqeyso 4.5 kaas laga baxo kadibna dalku qof iyo cid xisbiye la aado laakiin xaaladii marka lagu jiray iyo amnigii iyo dagaaladii dalku galay ayaa horta sabab ahayd in wax badan dib u dhacdo laakiin qodobkeena koowaad dastuurka waxa ku qoran in dalkan qof kasta oo muwaadin xaq u leh inuu wax doorto isagana ma taqaana waxna doorto isna la doorto marka horta mushkiladan ay haystaa waxa weeye madaxda marka meesha timaado aragtiyo kala meesha la yimaadaan xasan sheekh alifki markuu madaxweynaha noqonayay 2012 gudoomiye xisbi waxa madaxweyne farmaajo markuu isna noqonayay madaxweyne gudoomiye xisbiga tayo waxa madaxweyne xasan sheekhna hadda mar labaad uu soo laabtay waa gudoomiye xisbiga UPD marka wixii xilligii farmaajo madaxweyne farmaajo soo khaldamay iyo xilligii xasan madaxweyne xasan sheekh wixii soo khaldamay soo aragnay hadda waxa rabnaa marka wana wadagooda xisbiyadoodu 5 sano saan u shaqeynayay wixii sharci aan difaacanay inaanu xitaa sharcigii baarlamaanku intii la horgeeyay baarlamaankii sharcigii aan isku raacnay oo xukuumaddu ansixisay xilligii in la bedelay wataan maxkamad aan tagnay waagi aan kiis geen jirnay sharciga dagaal badan baan u soo galnay in dalka qof iyo cid aado laakiin laba ciladood baan ugu dhacay waxaan ugu dhacay dhinaca mucaaradka oo raggii madaxda dalka ka soo noqday odayaasha aysan sabood aan xisbiyadeennii markaa maxay ay tahay tabarta yaraa aan garab ka helin wadaan garab ka helin dalka dhinac baan u jeedin lahayn oo iyagu wax kale yana ay target ka saarayeen iyo dawladdii markaa jirtay iyo xukuumaddii markaa jirtay waan u socon qof iyo cod iyo in nidaam xisbi la aado maxaa yeelay waad garan kartaa annagoo xisbiye ah oo shahaadada kumeelgaarka haysana dawladdii markaa joogtana xisbi diiwaan gashan oo shahaadada kumeelgaar haystaa maysan haysan waxaa gashiidkeeda laftiga dhinaceedu ka yimid marka muhiimadda meesha taala waxaa weeye madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa xisbi gudoomiyaha xisbiga UPD subax baanu shahaadada wada qaadanay xisbiga shacabka Soomaaliyeed aan gudoomiye ka ahay lambarka 8 baan ahay madaxweyne xasan xisbiga uu gudoomiyaha ka yahay xisbiga UPD baa la yiraahdaa waa lambar 28 weeye isku maalin baa shahaadana la guddoonsiiyay anigu barteedii baan taaganahay wali xisbigii baan madax ka ahay wali qof iyo codkii sharciga dastuurka ku taaganahay nasiibna waxaan u helay xisbigii iga lambarka horeeyay aan isku lambarka xignay gudoomiyihiisina maanta madaxweyne yahay marka maanta waxa uga fadhinaa madaxweyne xasan waxay tahay in hanaankii qof iyo codkii xisbiyadii oo markaan shahaadada kumeelgaarka ku wada qaadanayno marka ku jirtay wariyadiisa ahayd inuu hadda rumeeyo naguna hogaamiyo annaguna aan ku garab istaagno oo dawladnimada dhismaheeda iyo dhisitaankeedana aan ku garab istaagno dawladda garabna ku siino hankayaguna ma aha dadka qof siyaasiyiin kuraas raadinayso hankoodu kursi uu yahay annaga waxaa noo muhiimsan waxa weeye Soomaaliya qurux badan ummadda Soomaaliyeed oo xorriyad u hesha ama xor u hesha ciiday dooranayso ciidda matalaysa isagana lagu dooran karo madaxweyne xasan waxa ka filan karna inuu qof iyo codkii abaabulkiisa u galo khaladaadadii markaa dhacay 2012 dawladdii ka dambeysay xil kala wareegtay maanta isagu yimi watii guddiga doorashooyinka uu kala diray oo guddiyada kala diray hadda yiri guddiyo cusub baan hadda sameynayna waxay dareemayna inuu jidka u socdo jidkaas uu yahay way si kooban waxaan rabaa inaad uga jawaabtid maadaama siyaasiyiinta Puntland aad ka soo jeedid matalaada Puntland xilligan sidee tahay horta Puntland waa tii xildhibaano badan laga soo doortay aqal sare Puntland in la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Danay baa madaxweyne ka ah oo madaxleedkiisa hadda gabagaba yahay isagoo raba inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo ayaa wixii la ogaa Puntland doorashadeedii uu ka sameeyay kolley Puntland matalaadeedu maanta de shacabka reer Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba way wada arkaan oo deendhooda u macallina ninka odaga ay aragtidiisii siyaasiga ahaa ayuu dadkii markii Puntland u matalay labada aqal uu ku soo xushay waxaana dareemaynaa baahi weyn inaan u qabno inaan meeshan matalaad dadka reer Puntland ay ka helaan laakiin matalaadii aan lahayn waxaan rajaynayaa dadkii uu ninka odaga ay u soo xushay oo u soo xushay in ay Puntland Soomaali u matalaan dawladda federaalkana ay xubin ugu noqdaan reer Puntland ay matalaadooda ay federaalka u joogaan caasimadda inay ninkii soo saaray sidoo ay u soo baxeen waan wada ogeyn inay istoosiyaan oo taariikh ka tagaan oo deegaanada ay matalayeen baahiyaha ka jira iyo waxay tabanayeen ay matalaad sax ah ay ku matalaan iskana ilaawaan ma aragtay siyaabihii ku soo baxeen lagu soo doortay aysan isu arag
siyaasiyiin Siciid Cabdullaahi Dani soo saartay laakiin ay yihiin siyaasiyiin kuraas beel lagu fadhiya oo gobolada iyo degmooyinka deegaan matalaya matalaadii laga rabayna ay sideedii maaragtay ay maxay ay tay ay uga soo baxan isaguna runtii maaragtay maxay ay tay de meeshan jab badan waa ka gaadhay oo sidoo wax u rabay wax uma dhicin oo de maaragtay uu doonayay laakiin waxaan leenahay dadka Puntland ku matalaya state-kan maaragtay federaalka state Puntland state dadka ku matalaya federaalka madaxda ay waxaan ku celinayaa yeesan isu arkin niman la soo baxay oo nin federaal u soo dirsaday oo nin u shaqeeya laakiin hay soo arkeen inay state iyo dad iyo degmooyin iyo gobolo dad matalaya yihiin matalaadoodina ay maaragtay ka soo baxaan wasiirro iyo dhowr xildhibaano kooban oo fare ku tirisa baan aad jeer suuqa ka maqlaa in matalaadoodu si sax ah ay maaragtay ay u shaqeyso oo ay shaqo fiican hayaan oo de matalaadii Puntland laga rabay maxay ay tay dadka deegaanada ka soo jeeda aad maaragtay sidii la rabay matalaad fiican u tusay oo wax badan la qabtay iyagana waxaan rajaynayaa inta kale dhimana inay dadka ay u matalaan si sax oo maaragtay ay ku jirto daacadnimo iyo Soomaalinimo ku jirto waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ku weydiiyo sanadihii la soo dhaafay oo dhan xilli siyaasadeedkii adinku ka xisbiya ahaan waxaad maaragtay xoogga saarayseen oo ka shaqeynayseen sidii maaragtay doorashooyinka aad uga dhex muuqan lahaydeen doorashadii qof iyo cod sidii ku suurtageli lahayd hadda maxaa idin qorshaysan maxaa rabtaan inaan qabtaan annaga waxaa noo qorshaysan horta xisbiyadu waa tii 2016 dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud markuu madaxweynaha uu ahaa waa tii sharciga xisbiyada la ansixiyay kadibna xisbiyadii xukuumadda markaa jirtay Cumar Cabdirashiid hogaamiye wasaare Cumar Cabdirashiid hogaamiye watii sharciga xisbiyada la sharciyeeyay oo ansixiyay baarlamaanka la orgeeyay watii xisbiyadii kumeel gaarka shahaado stage-ka koowaad ee kumeel gaarka xisbinimo watii xisbiyada la wada mariyay oo shahaadada kumeel gaarka aan wada qaadanay dowladda ka dambeysay maxaa Cabdullaahi Farmaajo hogaaminayay yana watii sharcigii doorashooyinka iyo sharcigii wax ka bedelka xisbiyada watii wax ku sameeyeen isbedel ku sameeyeen marka baarlamaankii xukuumadda markaa jirtay hadda marka anaga shaqadan horta la waal waxa weeye waa saddex shaqo qorshaan hor yaala kow in horta guddiga doorashooyinka horta dowladdu ay soo dhisto oo ay baarlamaanku soo xukuumaddu soo dhisto iyo baarlamaanku guddi lagu aamini karo in dalkan hanaan doorasho qof iyo cod ah dalkeeda ay gaarsiiyaan dadaalkeedii shaqadeedina hadda ay bilaabaan oo hadda u guda galaan kadibna sharciyadii inta dhameystirnay kuwa wax ka bedelka u baahan in dib eegisna lagu sameeyo waxna laga bedelo dibna maaragtay labada aqal loo hormariyo loo ansixiyo kadibna la abaabulo in xisbiyadii dib boorka looga jafo la tayayo annaguna aanu maaragtay shaqadayada maaragtay aanu qabsano xafiisyadii gobolada aanu ku lahayna abaabulkoodii iyo dabaabeyntoodii aanu galno maamul isteediyada joogaana ay la shaqeeyaan xisbiyada dalkana aanu diyaar garownayn sidii qof iyo cid ku adilaa laakiin waa in dowladdu ay nagu hormuud nagu noqotaa ay nagu horgashaa aysan waqtiga naga ridin siiba ra'iisul wasaaraha maxaa yeelay xukuumadda fulinta waxaa mas'uulka ah ra'iisul wasaaraha waa in ra'iisul wasaaruhu nagu hogaamiyo in dalkan hanaan qof iyo cod ah sida ugu horgalayna ka shaqeyso annaguna aynu istiyaarino stage-kii labaad xisbinimaduna aanu diyaar garowno sidii aanu maaragtay uga bixi lahayn una noqon lahayn xisbiyo maaragtay gala tartanka doorashada ee maaragtay maxay ay tahay labada aqal iyo maaragtay nafar waxa weeye miisaaniyad dhaqaalaha xisbiyadu ay leeyihiin iyadana in abaabulkeedii wax naga hortaagan in maaragtay abaabulka la galo waxaan kaloo halkan rabaa inaan wax yar ku sii darsado hadda wasaaradda maaliyadda kale waxaa wasiirka Dr. Cilmi baa ka ah oo runtii oday soo shaqeeyay oo runtii maaragtay xildhibaan ah oo ay araga aqoon-yahan ah de kullu wadankuna dhaqaalihiisii uu soo kabanayaa inkastoo de COVID-19 doorashooyinkii dib u dhacay waxyaabo badan dalka carqalad badan gelisay wasiirkana maaliyadda waxaan leenahay waa in dhaqaalaha wadanka uu ku jaangooyo ama uu ku maamulo sida hanaanka dowladnimadu ay tahay waa nin wax bartay waa nin dhaqaaliyahana in uusan bahasha uusan ka dhigin shaqada wasaaradda maaliyadda wax xisbi gaar ah ama cid gaar ah u daneynaysa miisaaniyad dowladeed oo dalka oo dhan wada kaafisa mashaariicdan soo dhacaysa ee dalka u soo dhacayana oo dalka oo dhan gacantiisu in wasaaradda wada gaadho wasaaradda maaliyaddu iyada dalka oo dhan hooyo wax walba mashaariic dhaqaale wadanka soo galay wasaaradda maaliyadda ku soo dhacaysa in deegaanada iyo magaalooyinka iyo gobolada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka dhammaan wasaaradda maaliyaddu inay il gaara ku hayso dadka maaliyadda ka dhex shaqeynayana ay noqdaan dad maaliyaddu ay u siman tahay aan la odhan
kan hebel iga soo bedelo hebel baan geenaynaa oo maaragtay aniga siyaasadeed ah uu ka fogaado laakiin uu noqdo wasiirkii maaliyadda dalka isteediyada dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliya isaga maanta oday u noqonaya inuu dhaqaalaha waddankana lagu maamulo si Soomaaliya horumarkeeda iyo maaragtay horu socodkeedaba ay u socon lahayd dowladana dowladii hore waxay kaga maaragtay uga yeer duwanta waxa weeye mucaarad 5 sano ee bardagaalamayay baa waddanka dowladii yimi wasiirada ka noqday oo maaragtay bishiishina muhiim ah cilmina kuwaas ka mid yahay wasiirku marka waxaan leeyahay wixii asana ka taban aad ka qaylinaysiin maanta idinku hormud ha noqonin idinku wax hormar u noqotaan sida waxna loo toosinaado waxna u sixi lahaydeen aad iyo aad waa mahadsan yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Suleymaan oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada hogaamisa ee dalkan aad iyo aad waa mahadsantahay